asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan jimco wanaagsan sidoo kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka idin kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee bollywoodkii koonfur hindi maxaa ka cusub haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar muuqaalka noola garee waxaa marka hore ku bilaabanaa filimada dabcan o t t lagu soo fasaxay shalan sheegna filimkii ganis angulabo oo dalquur salmaan raajkumar rabo hogaamiyaalkii barta netflix la soo geli waa filim dabcan serious taxane ama musalsal ah oo xalaqooyin kala duwan ka kooban ee filim dabcan hal mar jumlo oo kooban oo 2 saac ama 3 saac soconaya ma ahan marka ganis angulaba week endiga filimada la daawan doona asiga ciwaanka haysto waxaa sidoo kale qaybka filimada dabcan lagu soo fasaxay OTT-ga mashruuca lagu magacaabo Niyad oo fidya baran ee sameysay bartamada bishii July oo soo baxay filimkan tiyaatarka Falooba ka noqday laakiin waa eegi doonaa barta waxaa la soo geliyay Amazon Prime Video waa filim dabcan fariinta baaritaankii waxaas iyo kiis dil dhacay la baari doonaa qoys dhan ku saabsan sidaa darteed marka waxaa la soo geliyay Amazon Prime Video la soo geliyay mashruuca lagu magacaabo Niyad dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada OTT ugu waaweyn waxaa qaybka ee filimka lagu magacaabo dabcan Baby oo blockbuster taariikhiga noqday waxaa lagu dhawaaqay haatan 25 bishan Agosto oo jimcada dambe in la soo gelin doono barta ahaa video aanaya Devrogandi iyo Fashnaafi Jatanya gabadha lagu magacaabo wadan filimkan jaceylka fariintiisa qiirada badnaay oo taligu qabsaday muddo bil ka badan sugeynay saa darteed marka Baby-gii blockbuster-ka taariikhiga noqday 25 Agosto ahaa video lagu soo fasaxaya dhinaca kale filimka classic ee Hollywood-ka asigana 1 billion barka tilaabo Barbie the movie oo dunida idil sugays in dabcan lagu soo fasaxo OTT-ga asna waxaa lagu dhawaaqay in la soo gelin doono internetka taariikhda markay tahay 5 bisha September ayaa digital world lagu soo fasaxi doona laakiin theater world weli haysta tiyaatarada ayuu si aan caadi ka eegna Barbie qofkii u baahan marka meel ku qorto asigana 5 September ayuu soo bixi doonaa update-kaas OTT ugu dambeeyay bal markaan aan soo qaadana filimada jimcadan saaran masraxa gudaha Hindiya tiyaatarka sidee loo qaybsaday Gadar 2 OMG 2 oo masrax hore u saarnaa week 2 guda galeen Guumar asigana masraxa ku cusub maxaa la siiyay Abasheekh Bajan filimkan wado wala Abasheekh waa gacan gal asiga dhan waxaa la siiyay filimkiisa 500 oo tiyaatar la siiyay oo bari uu ku helay taasoo muuqata markii inay ku dhacday jab xoogan filimkiisa sidoo ku gadmi doona adagta 500 oo tiyaatar xitaa waa multiplexka laga siiyay dhinaca kale tan Gadar 2 toddobaadkiisa la markuu guda gala tiyaatarada wax yar laga dhimo 3300 oo tiyaatar ilaa 3400 oo tiyaatar ayay shirkadda caanka Z Studio usoo dhaciyeen taasoo ay ka dhigantay almost 90% tiyaataradiisa uu soo ceshtay wiig hore hadii laga daawanayo 3700 ilaa 3800 tiyaatar waxay ka dhigantahay marka Gadar tiyaataradiisa 10% kaliya hoos u dhaceen 90% uu soo ceshtay sidoo kale Akshay Kumar filimkiisa OMG2 asigana waa lamid oo mashruucan 90% tiyaataradiisa uu soo ceshtay maadaama toddobaadkan loo qoondeeyay ama toddobaadka labaad la siiyay 1700 tiyaatar ilaa 1800 tiyaatar halka toddobaadkii horena uu haystay 1900 ilaa 1950 tiyaatar ayuu haystay marka Gadar 2 OMG2 sidoo la u gadmaan 10% kaliya tiyaatar laga dhimay wixii yara laga dhimaya Guumar la siiyay Guumar haduu socmo waxay ka dhigantaana week indiga wixii ka dambeeya tiyaatarada kulay Gadari OMG2 waa loo qaybin doonaa dhinaca kale Karan Johar filimkiisa Rocky oo Rani Ki Premki kahani toddobaadka afraad uu guda galay hadana waxaa la siiyay tiyaatar ku filan 400 tiyaatar ilaa 450 tiyaatar ayaa la siiyay marka waxay ka dhigan tahay Ranveer Singh Alia Bhatt mashruucoodana week 4 ganacsi macquul u sameyn karaa markii la fiiriyo tiyaatarada la siiyay iyo dalabka uu haysto marka aragtidiina ka dhiibta sida toddobaadkan masraxa loo qaybsaday Gadar dana ugu jirto marka ganacsigiisa adagu sii wadan doona bal markaan aan soo qaadana filimka Guumar Abasheekh Bajan iyo Siyaama Qeer hogaamiyaalkeen fariintiis maxaa laga leeyahay waxaa directorka Ar Balki filim sameeyay aad loo tixgeliyay fariimaha uu doorto filimkiisa ugu dambeeyay xitaa Jubla amaanay hore u sameeyay China Kam iyo Ba iyo Shamitab mashaariic kala duwan Abasheekh u sameeyay Badman xitaa Akshay Kumar u sameeyay waa amita u sameeyay Abasheekh ma ahan hadaba Guumar wuxuu ka hadlaa sheeko ahaan gabar cricket ka ciyaarta oo dhibaato dabcan la kulmayso gacanta ka go'eysay sida u gaari karto riyada ay qabtay qof kale ma waa Anina oo Siyaama Qeyr qoyskeeda ku garab istaagaan sida ay cricketka guulka ay gaar lahayd waxbarashada iyo cricketka isku wadanaysa kadib markii loo soo xulo inay ciyaaraha tartamada cricket ka qayb qaadato waxaa ka hor imaanayo ninka lagu magacaabo Baddi waa Abasheekh Bajan ciyaaryahan hore oo cricket ku fashilmay qamriga la saaxiib ah laakiin macallin ah oo gabadhan ka caawinaya sida cricketka u baran lahayd ee qaranka ugu beeri wuxuu leeyahay qoftan qof cricket ku haboon ma aha qof ka soo bixi karta ma aha kaalinteeda ma qaadan karto si uu u moral dilaya markii dambe waxaa dhacaysa gabadhan dhibka uu ku hay Baddi intee ka xanaaqdo oo ay dabcan caroota iyadoo xaflad la jooga habeen si xun u bahdilo ayada iyo saaxiibkeed doorkan uu matalay jiid qof kale ma waa angad beedi intee soo baxaan gaari soo raacaan shil baabuur galayaan kadibna hadda gabadhii gacaneeba ka go'aysaa gacanta midig ee cricket ku ciyaar leed kadib Abasheekh Bajan wixii la xumaanay gabadha sidoo cananta iyo bahdilku ku sameeyay intuu staal ugu tagay markay soo reesto xuli waxaan ku hayaa Jaanis ku aadane bal macallin waxaas noqo cricketka ayadana way ka diiday waxay leedahay hadaa rabtid qaladka shalay iyo gashan aan ku cafiyo garab igu sii sidaan cricketka u ciyaar la anigoo hal gacan ka go'an
then filimka waxaa loo daawan doonaa sidoo abasheekh garab u siinaya gabadhan iyo guusha ay gaari doonto. directorka albarki sheekada uu doorto waa sheeko la aqbali karo, sidoo kaletana dabcan la daawan karo. halka cilad ee uu filimka guumar leh waxay tahay waqtiga aad u dheer. haafka horena wuxuu soconaa 50 daqiiqo, haafka dambena wuxuu soconaa sida haatan shaac laga qaadaa 80 daqiiqo. marka waxaa le filimada noocan oo kale oo aan madadaalo lahayn waxay ahayd xoogaa in sheekada aad loo yareeyo ama waqtiga la yareeyo si looga faa'iideysto. dhinaca kaletana filimkan waxaa leeyahay saaxiibada qiimaha badan wuxuu kaloo ku liitaanay. waxaa leeyahay dabcan halka saac horena xoogaa sheekada strongi ma ahan, second halfka dambe uu adagyahay markuu abasheekh bajan soo galo. haddaba sidoo kalena waxaa leeyahay sheekada way muuqataa wax ma jirto twist antaan caadi simple wala fahma wax kasta oo dhacayo. ayadana waa cilad kale, waxaa leeyahay waxyaabo qaarkood in la qariyo oo surprise-na filimka ma lahan. abasheekh bajan bandhigiis innaba caadi ma doorka uu qaata 100% ka run sheegay. qof dabcan failer cricket ku guuldareystay, qamriga saaxiib leh, macallin mayl adag dadka aan u nixin, iyo markii dambe sidoo gabadhan garab u siinayo. siyaamo qeyr ayadana waxay qaadatay kaalin kale oo heer sare door dhib badan ay qaadatay laakiin 100% ay kasoo baxday. shabaana asmi maamada ku matalaysa ayadana door fiican ay qaadatay. angar beedi oo gabadha lamaankeeda ku matalaya door fiican u qaatay. adi lama xumo, laakiin guumar culayska haysta waxay tahay waqtigiisoo dheer, fariintiisoo haafka hor xoogaa yara liidad, second halfka dambe strongi tahay, iyo culayska haysto gadaar 2 OMG2 magaalka haystaan, iyo filim aan xayeysiin badan loo sameynin. waxaa le best solution xalka ugu fiican waxay ahaydba in la weeciyo OTT-ga ama la geeyo dabcan internetka, laakiin waa arki doonaa waxa uu box office kala kulmo. akhyaarta qiimaha badan filimka dabcan gadaar dhankaasi deegaanka batnaa iyadoo lagu daawanayo waxaa la sheegay khamiistii waa 24 saac ka hor gelinka hore ayaa waxaa dhacday laba waxyaabood bambo iska yaryar in lagu tuuray banaanka tiyaatarka magaalada batnaa oo single screen ku yaalaan. kadibna markay bugbug dhahday labadii qarax dhaceen tiyaatarka waa la isjiiray, waa la kala cararay. booliska baaritaan waxay wadaan ku aadan waxaa la qarxiyey bambo intee la eg dadka qaarkood waxay leeyihiin waxyaabaha qaar la isku xidhxidhi karo simbali la qarxiyey, waa kuwo qaarkoodna waxay leeyihiin waa bam caadi oo banaanka la dhigay tiyaatarka si dabcan loo arbusho dadkaas filimka daawanayaan. gadaar waan ka warqabnaa xaaladda uu ku jiro iyo sida wax uu kiciyo iyo hindi sida u haysto. dhinaca kaletana waxaa dadka qaarkood la soo xiray oo aan la ogeyn baaritaan la sameynaa ciddii ka dambeysay. si kastaba ahaata xoogaa reer batnaa filimkan daawashada gadaar ee ku raaxaysan lahaa khamiistii waxaa la carqalada la kulmeen magaaladaas. xoogaa waxaa la galshay xitaa heegana booliska la geliyay markii laba bamba banaanka dabcan laga qarxiyey. haatana baaritaana socda laakiin filimka si waala ayaa loo daawanaa sida hadda muuqato. wiiga labaadna wuu gudagale asagoo tiyaatarada ugu badan haysto. dhinaca kale ciwaanada kala soo qaadan karna waxaa qaybkii akhyaarta qiimaha badan gabadha lagu magacaabo Mahira Khan oo ku canbaxday filimkii Ra'iis inay Shaaruq Khan la sameyso Bakistani oo sanadii 2017 Bollywood ka soo gashay kadibna Bollywood saga baxday kadib markii jilayaasha Bakistaniga dhibaato gudaha Hindi loogu geysto fanka loo diiday. gabadhan hadda magaceeda dhulka ma dhicino. waxaan ka warqabnaa The Legend of Mawla Jad filimkii Bakistaniga sanadka hore sameysay All Time Black Bass noqday mashaariic kala sameeyay superstarad Bakistani hadda waxaa ugu dambeyntii way guursan doontaa, waxayna guursanaysaa ganacsadaha lagu magacaabo Salim Karim oo bishan September aqal gali doontaa sida haatan shaac laga qaada. weliba waxaa la xaflad private oo labada family ka qayb qaadanayaan ayaa dhankaasi dabcan gudaha Pakistan ka dhacayo sida la soo daabacayo. marka gabadhii ahayd Mahira Khan SRK Bollywood ka soo galiyay hadda ugu dambeyntii waxaa la way xaran doontaa. dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka Jacqueline Fernandez ayadan dabcan maxkamadda dhankaasi Delhi waxay u ogolaatay inay gudaha Hindiya ka bixi karto fasax la'aan. in muddo gabadhan baasaboorkeeda waa leysto waxaan lagu weysta kiiskii xariifkii tuugaad ka hor ka sheekaysanay Sukash Chandrasekhar inay la saaxiibto oo lacago 10 karoor ka badan accountkeeda ku shubay sawirro laga soo qaaday ayadii Sukash waqti wada qaadanay. ninkaas dowladda gacanta ugu jira waxaa la dhahay lacagahaas uu lunsaday gabadhan sii marsiiyey. adiga kiiskeeda uu iska cuslaa laakiin in muddo baaritaan lagu hayay markasta bixiisana waxay u baahneed ogolaansho iyo fasax iyo muddo qaadan jirta. laakiin hadda waxaa la waa markii ugu horeysay oo maxkamaddu u ogolaatay inay dabcan waqtiga doonto gudaha Hindiya ka bixi karto, waqtigii ay doontana ay soo gali karto. dhankaasi waxaa laga yaabaa waxaa la Mareykanka iyo Yurub iyo meelo kala duwan inay shaqooyin u aado. waxaan kaloo soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka akhyaarta qiimo badan filimkii Boro ee Bowen Kalyan sameeyay 3 toddobaad oo dhameystay inkastoo mashruucan uu fashilmay haddana still tiyaataradu baaq ku yahay week 3 uu dhameystay. haddana wuxuu soo xareeyay sida shaac laga qaadaa World War Gross 114 karoor soo xareeyay ganacsigiisa gudaha Hindiya iyo daafaca caalamka. qolyaha cajaladaha qaybin saami ahaan waxay keeneen 68 karoor. mashruucan waxaa dishay lacagta faraha badan lagu iibsay 98 karoor bar saadartee 30 karoor iyo bar lumiye. khasaare ahaan filimkan uu burbura laakiin waxaa la awoodda Bowen Kalyan waa lagu ciyaaraya. waxaan ka warqabnaa maalmo kooban filimka Boro inuu ku gaaro 100 karoor kadibna sidoo u daatana waa laga warqabo. marka update ugu dambeeyay waxay tahay 3 toddobaad filimkan tafaafulka oo Bowen Kalyan oo la sameeyay Sadaram Teja halkaas ayuu marayaa 114 karoor ganacsigiisa gaara. filimada qaarkood 100 karoor gaaran hiidi noqdaan laakiin awoodda Bowen Kalyan lacagta faraha badan laga baxshaa keenta filimkan inuu burburo. guud ahaan barnaamijkan intaas uu ku egyahay waa inoo kulan dambe hadduu alla idmo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.